Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to our YouTube channel, Osman Puncher, for studying the English language. Dear brothers and sisters, kusoo dhawaada janalkeena barashada luqadda Englishka. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 33 ee Englishka. Waxaan qaadanaynaa conversation about 5WH and how. Hore waa usoo baranay. Maanta marka waxaan qaadanaynaa hal conversation oo dhammaystiran oo lixdoodaba ay ku wada jiraan 5WH iyo how ay ku wada jiraan oo min hal su'aal aan kasoo wada qaadanaynaa oo muhiim ah. Okay, ka hor inta aanan guda gelin cashirku waxaan rabaa inaan soo qaadano erayada nagu cusub, the new vocabulariska ama new wordska inaan soo qaadano. Okay, erayga ugu hore aan ka qaadanayna waxay noqon doontaa create ayaan ka qaadanaynaa. Create erayga ugu hore, create waa C-R-E-A-T-E. Create waa abuurid. Abuuridda miduu alla anagana abuuray, iyo create abuuris oo fikir inaad curisid ama wax adigoo abuurayo ama page ama YouTube channel wax uun create gareynayo. Create way ku qoran tahay abuur ama create curi. Marka create waa abuurid. Okay, create waa abuurid. Ida ugu dambeysa way aamusan tahay. Create ayaa leedahay abuurid. Okay, great hora usoo baratay. Great markay tahay waa weyn ama great fiican waa G-R-E-A-T. kuma jirto midaan great fiican tahay. Great waa G taas. Create iyo great ay kala yihiin. Create waa C-R-E-A-T-E. Create waa abuurid. Okay, erayga kale aan soo qaadanayna waxa waa alone waa keli, waa A-L-O-N-E. alone waa keli. alone ama alone waa keli. Okay, waxaan kale intoo soo qaadanaynaa obey waa adeecid. Obey waa adeecid, waa O-B-E-Y. Obey waa adeecid. Haddii ing lagu daro obeyin, adeecitaan ay noqoneen. Obeyin adeecitaan. Adeecid. Okay, waxaan kale intoo qaadanaynaa eraygeeni afraad, difference waa D-I-F-F-E-R-E-N-C-E. difference ma dhehaysid, D-I-F-F-E. daas oo F-F-ta ku xigto kuma dhawaaqaysid. Diffe ma dhehaysid. F-ta ku egeysiina dhawaaqa marka hore. Difference ayaa leedahay. Difference ayaa leedahay. Okay, difference waa farqi. Okay, waa isla fahmnaan u maleynaa. Okay, between u dhexeeya. Between waa B-E-T-W-E-E-N. Between u dhexeeya. Okay, religion waa diin. Religion waa diin. Okay, region markaa aragtidna, region waa gobol. Tusaale ahaan gobolka Banaadir oo kale. Region waa gobol. Religion markaad aragtidna, religion markaad aragtidna waxa weeyaan waa diin. Region aa leedahay. Region waa R-E laakiin ri aad ugu dhawaaqay. Region gobol.
religion waa diin. religion markii la marka Islamic religion diinta islaamka, Islamic religion. laakiin religion waa diin walbay noqon kartaa, laakiin Islamic religion markaa dhaadid waa diinta islaamka. waa isla fahmnay. okay, kelmadan kale waa person waa qof, person waa shakhsi, person waa qof, qof rag iyo dumar wuxuu rabo noqon karaa. person waa qof. person jamaciisa waxaa la yidhahdaa people. hora soo baratay people. okay, person waa shakhsi. okay, example waa tusaale. waa example tusaale. haddaa ratid for oo for raacsiin karta adiga for example tusaale ahaan, ama example tusaale keliya, for example tusaale ahaan. okay, intaan waa isla fahmnay. quraan waa naqaana, quraan waa naqaana, waa Quran Englishan. quraan waa naqaana. okay, marka waxaan bilaabanaynaa cashirkeeni conversationka anaga oo 5wh and how min hal su-aal aan kasoo qaadanayna iyo jawaabteeda. waxaan ku bilaabaynaa who. okay, who did create you? who kuma did create you adiga ku abuuray. who did create you kuma adiga ku abuuray. okay, jawaabtu waxay noqotay Allah, ilaahay ba created me, anigay abuuray. jawaabtu waxay noqotay Allah, ilaahay ba created me, anigay abuuray. okay, su-aashan kale why ayaan soo qaadanaynaa. waxaan leenahay why sababteeba did Allah. didkan waa su-aal oo wax lasoo dhaafay sheegay maadaama ilaahay ku abuuray. why sababteeba did Allah uu ilaahay create you adiga ku abuuray. Allah, ilaahay created me, wuxuu aniga ii abuuray. created me wuxuu aniga ii abuuray to worship him, to worship inaan caabudo him, ilaahay ee u taagantahay isaga, him isaga, alone keligii. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ayuu ilaah yidhi. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. jinni insiba wax kaloo looma abuurin, waxaan u abuuray inay aniga caabudaan ayuu ilaah yidhi. marka waxa weeye Allah, ilaahay created me, wuxuu aniga ii abuuray to worship him, to worship inaan caabudo him isaga, alone keligii. qul huwa allahu axad, alla waa keligii. okay, Allah created me, alla wuxuu ii abuuray aniga to worship him, inaan caabudo isaga, alone keligii. okay, alone keligii waa caabuditaan oo qof kale loola shariig yeelayni waay. okay, how ayaan markaan su-aashan soo qaadanayna. how sideeba do you adigu worship u caabudaa Allah, ilaahay waan caabudaa dhalaag sidee ku caabudaa. marka how sideeba do you adigu worship aad u caabudaa Allah, ilaahay. question mark. I ayuu yiri marka jawaabtu. I aniga worship waxaan u caabudaa Allah, ilaahay by obeying anigoo adeecaya. anigoo adeecaya him isaga oo Allah ah. by obeying anoo adeecaya Allah, ilaahay. adheena by obeying anoo adeecaya Allah, ilaahay, and his messenger iyo rasuulkiisa Muhammad bin Abdullahi bin Abdulmudallib, peace nabadgelyo p ha ahaato upon him dushiisa. waayo ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi wa adiicu llaha wa adiicu rasuul. alle iyo rasuulkiisa adeeca haddaad rabtaan wadada guusha iyo jannada inaad heshaan waay. okay, sidee ilaahay u caabudaa marka? I worship Allah, alle waxaan u caabudayaa by obeying inaan adeeco Allah, alle. adeecidda alla marka maxay noqonaysaa? amaradiisa inaan qaadano,
qur-aanka wax walba ku sheegay inaan ku qaadano, wuxuuna oo ka tagana dhaho inaan ka tagno, macsida, xumaanta, kulli, qamriga, doofaarka, waxoo idil. Okay, markuuna dhahana marka and his messenger iyo rasuulkiisa, wax waliba oo ilaahay ina amro wuxuu inoogu soo faray oo noogu soo dhiibay oo fariinwado u ahaa rasuulkiisa. wax walba rasuulkana soo gaarsiin xag alle ka imaadeen. marka oo marka wax oo qur-aanka ku saabsan axaadiisul qusri markuu yahay isaguna xag allo ka yimid. axaadiista kale markuu yahayna waa qur-aankii lasii fasiray oo noolu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo inoo jilciyey oo inoogu sheekeeyey. Okay, akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan. marka axaadiista saxiixa ah inaan rasuulkeena ku adeecno iyo alle oo qur-aankiisii iyo xadiisul qusrigii aan ku adeecno ayaa ah in aan caabudno alle, taasoo wixii aan ka reebtoomeynana aan kaga reebtoomeyno, wixii aan raaceynana aan ku raaceyno. I worship Allah, alle waxaan u caabudaa by obeying anigoo adeecaya Allah ilaahay and his messenger rasuulkiisa Muhammad bin Cabdullahi bin Cabdulmudallib, peace nabadgelyo be ha ahaato upon him dushiisa, nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee. Okay, su-aasha kaleenta waxa weeyaan waa what is waa maxay the difference farqiga between u dhexeeya Islam and Muslim. What is waa maxay the difference farqiga between u dhexeeya Islam and Muslim. Muslim iyo Islam farqiga u dhexeeya muxuu yahay? Islam is the religion G-I-O intan waxaa ugu dhawaaqaysa jen religion. Okay, religion. Islamku is the religion waa diinta, and the Muslimkuna is the person waa qofka. Islam is the religion, Islam waa diinta, and Muslimkuna is the person waa qofka. For example, tusaale ahaan, I'm a Muslim, aniga waxaan ahay Muslim, and my religion diinteeduna is Islam waa diinta Islaamka. Okay, where aan soo qaadana markaan where halkeebaad did you adigu did waxay tilmaamaya su-aal basta ahee tilmaamee. Where halkeebaad did you adigu study ka baratay the Quran, quraanka halkeed ka baratay? Where did you study the Quran, quraanka halkeed ka baratay? Aniga had learnt waxay tilmaamaya wax lasoo dhaafay waay. learn markay tahay waa wax hadda baranaysid. learnt markii la dhahanayo waa past of learn, wax lasoo dhaafay ka hadle. learnt aniga had learnt. grammarka haddaan ku wareerin qaabkan kuu siiya keliya hadda u baro. grammarka waan arki doonaa. aniga had learnt waxaan bartay. I had learnt waxaan bartay it qur-aanka. aniga had learnt it waxaan ku bartay qur-aanka in Somaliaan ku bartay. where halkeebaad did you adiga study aad ku barta qur-aanka? aniga had learnt waxaan ku bartay it qur-aanka in Somaliaan ku bartay anigoo dhex jooga Somalia. Okay, when goormeeba do you adigu read aad aqrisaa the qur-aanka goormeed aqrisaa? When do you read the qur-aanka goormeed aqrisaa? aniga always had iyo jeer ama alaabe. aniga had iyo jeer read waxaan aqriyaa it qur-aanka in the morning subaxii, and sometimes mararka qaarna in the evening fiidkii. qur-aanka inaad aqrisid waa kuu muhiim, waayo qof madaxa ay xanuunayo dhahaya arke qur-aanka ma aqrisanayo ama ma dhageysanayo, madaxaaga kaniini kuma degayo. madax walba hadduu ku xanuuno ama gaajo walba ay ku hayso haddaad qur-aanka aqrisid waxa weeyaan gaajaduna way kaa khafiifaysaa, iimaankaaga wuu buuxsamayaa, madaxaagana wuu ku degayaa. marka qur-aanka maalintii inaad aqrisid isku day, haddii kale madaxaaga mar walba uu kacsanaa stress, qof maanta dhan fikiraayo aan naqanay. qur-aanka markaad aqrisid madaxaaga wuu ku xalismaa. For example, maxaa la tusaale ahaan markaad qur-aanka aqrisid adiga dhan waa dege, su-aalaha ama jawaabaha aad dhiibaysa wax macquul galay noqonayaan.
okay laakiin haddii aadan qur-aanka ka leexatid shaydaanka mar walba marka qalbigaaga maskaxdaada meel walba kaa degaya dhiigaaga oo dhexgalaya waxa waa adiga dhan shaydaanka hadalladaada xitaa boobsiis oo ka dhiga hadalla aan akhlaaq lahayn oo ka dhiga marka isku day haddii aadan qur-aanka aqoon inaad baratid haddii aad taqaanayna ama haddaa in yarka ka siisid xitaa intaas yar akhri everyday akhri ha ka xishoon intaas yar akhri haddii aad wada taqaanidna suuratulbaqara kasoo bilaaw ilaa suuratulnaas kadibna marxaa la dhahaa maskaxdaada way degaya caafimaada dareemi okay aan ku celiya marka hal mar who a iyo b anoo kala siinayo laba qof sheekeysanayo kale who did create you yaa ku abuuray Allah created me Allah baa ya abuuray why did Allah create you Allah muxuu ku abuuray Allah created me Allah wuxuu ii abuuray to worship him alone inaan keligii caabudo how do you worship Allah Allah sideed u caabudaysaa I worship Allah Allah waxaan u caabudayaa by obeying aniga oo adeecaya Allah ilaahay and his messenger iyo rasuulkiisa Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib peace be upon him nabadgelyo dushiisa ha ahaato what is waa maxay the difference farqiga between u dhexeeya Islam and Muslim Islam iyo Muslim farqiga u dhexeeya muxuu yahay Islam is the religion Islam waa diinta and Muslim is the person Muslimna waa qofka for example tusaalahaan I am a Muslim waxaan ahay Muslim and my religion diinteeduna is Islam waa diinta Islaamka where did you study the Quran halkeed ku baratay Quraanka I had learned waxaan ku bartay waxaan ku bartay it Quraanka in Somalia ku bartay meeshaad ku baratay waa ku bedeli kartaa when do you read goormeed akhrisaa the Quraanka goormeed akhrisaa I always hadii jeer read waxaan akhriyaa it Quraanka in the morning subaxii and sometimes mararka qaarna in the evening fiidkiyan akhriyaa okay waxaan u maleynayaa inaan isla fahamnay 5wh questions and how inaan isla fahamnay marka waxaan idin leeyahay anigoo ah teacher Osman Abdulqadir Puncher casharada ama Englishka ardayda jecel inay bartaan u share gareeya kuna xirnaada channelkeena Osman Puncher gambaleelka furo like-ta nagu dhiirigeli commentiga dhaliisheena diyaar baan u nahnay oo kusoo qori kartaa amaanteedana sidoo kale waxaan rajeynayaa haddaan caafimaad qabo inaan isla joogno wax badan aan kala faa'iideysano marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh